Wacan wanaagsan gebi ahaantiinba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda oo idinkaga imaanaya janalka Gobson TV. Qodobada ugu doorka roon aad ku daawan doontaanna waxaa ka qayb noqonaya ciidamada dawladda oo howlgallo ka wada deegaano ka tirsan ee Shabeellada Dhexe iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo lagu soo qabqabtay howlgalkaasi. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ballanqaad weyn u sameeyay ciyaartoyda 17 jirada ee Muqdisho ku soo laabanaya. Beesha Xawaadle oo u dhaqaaqday saakay la wareegida degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan iyo xoghayihii guud ee ururka ee saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS Cabdalla Moomin oo ugu dambeyn xabsiga laga sii daayay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamij wareedkeena, balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan annagoo ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa. waa maalinimo Isniina, taariikhduna ay tilmaamayso 17 bisha 10aad ee Oktoobar sanada 2022. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. ciidamada dawladda ayaa howlgallo ka wada saaka deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. ciidamada oo shalay gelinkii hore la wareegay deegaano ku yaala bariga degmada Balcad ayaa saaka howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka wada deegaanada kala ah Mukay Dheere, Shanlow, Dhagaxow, Jameeco, Xawaadley iyo deegaano kale, halkaasi oo dhowaan ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. howlgalladan oo ay hogaaminayaan xildhibaan Ismaaciil Xaadoole iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo labaduba ka tirsan ciidamada militariga ayaa waxa ay sheegeen in ay howlgalladan sii wadi doonaan ilaa iyo inta laga guuleysanayo kooxda Al-Shabaab. dhinaca kale, ciidamada dawladda Soomaaliya ee maalmihii la soo dhaafay isku urursanayay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay, iyada oo la filayo in maalmaha soo socda ee howlgalka ay ka bilaabi doonaan deegaano iyo degmooyin ka mid ah ee Shabeellada Dhexe oo ay kaga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa ballanqaadyo weyn u sameeyay ciyaartoyda 17 jirada kuwaasi oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho saacadaha soo aadan. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa casho sharaf waxa uu sameeyay ciyaartoyda da'doodu ka hooseysa 17 jirada ee ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa Under 17 waxaana uu ugu sameeyay casho sharaftaasi magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia. ciyaartoyda xulka qaranka ee 17 jirada oo ku soo guuleystay koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa oo ciyaartii u dambeysay ay kaga adkaadeen xulka qaranka ee Suudaan ee golol gaaraya 3-1 ayaa waxa ay ku soo wajahan yihiin maanta in ay ka soo degaan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. munaasabada cashada ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha dawladda, waxaana ra'iisul wasaaraha uu u ballan qaaday in uu taageeri doono waliba uu taageero weyn u muujin doono isaga oo ballanqaadi u sameeyay macalinka ee hogaaminaya xulka qaranka iyo sidoo kale ciyaartoyda oo uu sheegay in ay yihiin kuwa abaalmarin wax ka weyn mudan xulkana wax badan u soo qabtay kuwaasi oo taariikhda baal dahab ka galay. dhanka kale kooxa la sheegay in ay ahaayeen ciyaal weero
ayaa xalay waxa ay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ku dileen wiil dhalinyaro ah iyaga oo goobta ka baxsaday. marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Ciise Sheekh Ibraahim ayaa dilkiisa waxa ay ciyaal weerada u adeegsadeen toorey xilli uu marayay inta u dhaxaysa dabaqaynka iyo sidoo kale suuq liif ee degmada Dharkeenley. ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo ehelkiisa ayaa tagay goobta uu falkan ka dhacay iyaga oo xarunta hay'adda dambi baarista ee CID-da geeyay meydka wiilka yar ee tooreyda lagu dilay. waalidiinta ee marxuum Ciise Sheekh ayaa dalbaday in cadaaladda loo helo dilka wiilkooda iyaga oo sheegay in ciyaal weerada ay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka gobolka Banaadir gaar ahaan dadka ku nool degmada Dharkeenley. dhanka kale tana waxa ay xabsiga laga sii daayay xogayihii guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Muumin. xogayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Muumin ayaa qaab damiin ah xabsiga looga sii daayay kadib markii 6 maalmood oo u xirnaa hay'adda amniga dawladda iyo federaalka Soomaaliya. maxamed Cabdulwahaab oo ka mid ah madaxda ururada ee saxaafadda ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin soo deynta Cabdalla Muumin, waxaanu sheegay in damiinkan oo lagu soo daayay uu ku egyahay 45 cisho kadibna ay go'aansan doonaan halka ay kiiskan u jihaysan doono. Cabdalla Muumin oo lagu xiray garoonka Aadan Cadde xilli uu doonayay inuu garoonka ka dhoofo ayaa subaxnimadii hore ee saakay waxa laga soo daayay maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho iyadoo dacwad oogayaashu ay awoodi waayeen in ay cadeeyaan dambiga uu galay sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan SJS. ururada warbaahinta gudaha iyo dibadda ayaa xariga Cabdalla Muumin walaac ka muujiyay iyagoo sidoo kale shaki geliya nooca eedeymaha loo haystay. wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan iska fogeysay ku lug lahaanshaha xariga suxufigan. qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeennii daawade. haddii aad nala soo gaartay qaybtan waxaa kaa codsanaya inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo ood u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada.